Thank you very much, Your Excellency. I congratulate the government and the people of China for organizing this successful gathering of international waxaan u friends. hambalyeeynaya dawladda iyo shacabka Shiinaha sida hufan ee shirweynahan caalamiga ah u soo abaabuleen. waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran iyo martisoorka ay inoo fidiyeen intii aan booqashadan ku guda jirnay. mowduuca shir madaxeedkan isku duubni iyo wadajir in kor loogu qaado horumarka iyo casriyeynta bulshooyinka Afrika iyo Shiinaha iyo mustaqbal wadaag ah waa mid aad u habboon xilligan. wuxuuna ku salaysan yahay iskaashigeennii hore ee taariikhiga ahaa iyo saaxiibtinimadeena. sidoo kale waxa uu soo bandhigayaa fursado cusub oo wada shaqayn iyo horumar wadajir ah faa'iidana u leh labadeena dhinac. Shiinuhu waa saaxiib wanaagsan oo taariikhi ah oo aan doonayno inaynu xoojino xiriirka nagala dhexeeya dhammaan dhinacyada faa'iido wadaagga ah iyada oo la raacayo qaab dhismeedka madashan. waxaan si diiran u soo dhaweynayaa iskaashiga Soomaaliya iyo Shiinaha oo ku dhisan mabaadi' adag ee daacadnimada, natiijooyinka la taaban karo, saaxiibtinimada iyo kalsoonida wanaagsan, kuwaasi oo sidoo kale ka muuqda guud ahaan qaaradda Afrika. tani waa wadada kaliya ee lagu xaqiijin karo yoolalka wadaagga ah ee lagu gaarayo horumar waara iyo barwaaqo wada jira. guulaha amniga ee Soomaaliya iyo caqabadaha nabadda Afrika. mudanayaal iyo marwooyin, si Afrika ay u gaarto awooddeeda buuxda, waxaa lama huraan ah in wadajir loo abuuro mustaqbal wadaag ah oo lagu xaqiijinayo nabad waarta iyo amni caalami ah, taasi oo saldhig u noqon doonta horumarinta iyo casriyeynta qaaradda Afrika. maadaama maanta Afrika ay hoy u tahay inta badan colaadaha dunida ka dhaca, waa inaan labanlaabno dadaalkeena si aynu u xakamayno rabshadaha iyo faafitaanka hubka, isla markaana aan u dhisno aasaas adag oo lagu xaqiijinayo nabad waarta iyo horumar caalami ah. Soomaaliya gudaheeda waxaan si geesinimo leh ugu guuleysanay dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab oo ah garabka ugu khatarta badan Al-Qaacidada qaaradda Afrika. waxaa si weyn u jabiyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay taageerayaan dadkeena iyo howlgalka ku meelgaarka ah Midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS. waxaan u mahad celinayaa dhammaan wadamada Afrikaanka ah ee ciidamada militariga ah iyo kuwa booliiska ah ku tabarucay ATMIS. waxaana muuqata in dadaalka iyaga wadajirka ah iyo nafurnimada aan galnay ay keentay xasilooni Soomaaliya gudaheeda ah, geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda. hase yeeshee natiijada is-afgaradkii sharci darrada ahaa ee Itoobiya ay la saxiixatay maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya waxa uu khatar cusub ku yahay dadaalada gobolka, qaaradda iyo guud ahaan adduunka. ilaa hadda dagaalkayaga ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah waxa uu sababay xoreynta in ka badan 80 magaalo, tuulooyin iyo deegaano kale, qabashada ama dilidda hogaamiyaal sarsare oo argagixisada ah. waxaana sii wadaynaa dagaalkan ilaa laga tirtiro khawaarijta. shacabka Soomaaliyeed ayaa heli doona fursado ay si nabad ah ugu dhistaan noloshooda, bulshadooda iyo qarannimadooda. dhisidda mustaqbal wadaag ah, nabad waarta iyo ammaan caalami ah waxay u baahan tahay wax ka badan dagaalka oo kaliya. waxay u baahan tahay maalgashi lagu sameeyo qaybaha aasaasiga ah ee kobciya isku xirnaanta bulshada iyo ka qaybgalka muwaadiniinta ee dawladda, gaar ahaan meelaha dhawaan laga xoreeyay argagixisada sida waxbarashada, caafimaadka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo abuurista fursado shaqo. amnigu ma ahan wax ku kooban xuduudaha, waxaana cad inaysan suurtagal noqon karin in la gaaro nabad waarta iyo ammaan caalami ah haddii aan si siman loo horumarin dunida oo dhan. sidaasi daraaddeed, iyada oo loo marayo habka FOCAC, waxaan rajaynayaa in xiriirka Afrika iyo Shiinaha uu xoogga saaro nabadda iyo horumarka Afrika si mudnaan loo siiyo horumarinta dunida. xilligan casriga ah ee dunidu isku xiran tahay, amnigu ma ahan mid ku kooban xuduudaha qaaradaha, waxaana cad inaysan suurtagal noqon karin in la gaaro nabad waarta iyo ammaan caalami ah iyada oo ay jirto horumar la'aan iyo fursado aan sinayn oo adduunka ah. sidaasi daraaddeed, iyada oo loo marayo qorshaha madashan, waxaan rajaynayaa in xiriirka Afrika iyo Shiinaha uu dib u eegis ku sameeyo uuna xoojiyo dadaalada lagu dhisayo laguna ilaalinayo nabadda qaaradda Afrika iyada oo mudnaanta la siinayo qorshayaasha horumarineed. mudanayaal iyo marwooyin, Soomaaliya waxa ay si xoog leh u garab taagan tahay siyaasadda halka Shiine. waxaan si weyn ugu mahad celinaynaa dawladda Shiinaha taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan tahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan shuruucda caalamiga ah
qawaaniinta midowga Afrika iyo qaramada midoobay. Soomaaliya waxa ay ku faraxsan tahay in Shiinaha ay ku heliso golaha ammaanka ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa Janaayo 2025 iyada oo noqonaysa xubin aan joogto ahayn muddo 2 sano ah. Waxaan rabnaa inaan iskaashi la sameeyno dhammaan xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka oo Shiinuhu ku jiro si aynu horumarino nabadda iyo amniga caalamiga ah. Gabagabadii, khibradda Soomaaliya waxa ay na tusaysaa in xasilooni darrada meel kasta ka jirta ay khatar ku tahay dhammaan caalamka. Sidaas daraaddeed, waa inaan wadajir u wajahnaa caqabadaha argagixisada iyo ammaan la'aanta si aynu u dhisno mustaqbal wadaag ah oo leh nabad waarta iyo ammaan caalami ah. Nabad waarta iyo ammaan caalami ah waa arrin muhiim u ah horumarka caalamka oo dhan. Aan wadajir u gaarno yoolalkan muhiimka ah. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.